marba haddaad joogto xilli roobaadku aad u dhow yahay waxaa la beeraa geedaha sida yaanyada oo kale sida haddaba annagu aanu samaynay waxaa loo sameeyaa alaaba meel xira ah sida tan oo kale kadibna halkaa ayaa lagu diyaariyaa kadib geedahani marka ay soo baxaan mid walba meel gooni ayaa loo raraa hadda tirsigan haddii aad tirisaan waa tirsi ilaa 100 xabba gaaraya sidoo kale xilliyadan oo kale marka aad joogtid waxa la beeraa geedaha ayaguna magaaladu ka manfaacadsan karto sida dadka waxa loo diyaariyaa geedahan oo kale geedkan sida aad taqaanaanba waa geed muringe waana geed daawo sida aad u ogtihiinba geedaha aan beernay xayn ka mid ah weeye sidoo kale geedaha aan beernay waxa ka mid ah geedka halka dhexda ku jira oo loo yaqaan gob xaggaasna kaaga sii muuqan doona iyo xaggaba waka soo ma aragtid marka geedahan marka soo aad hal geed beedho inta aad nooshahayna ajar baad laga helaa aakhira haddaad dhimatana dheefteeda iyaduna way ku taalaa marka mar walba annagu waxaan idinka fikiraynaa khayraad sidoo kale geedahan oo kale ayaa la beeraa oo dadku harsanayaan iyo geedaha quruxda leh ee aad arki doontaa sida geedkan oo kale waa ubax adki weeye bilowda ayuu roon yahay marka halka maxaa ka fahanteen geedihii kale aan halkaas ka tusinay kuwa ah marka annagu waxaan nahay isha khayraad abuurka Soomaaliyeed waxaan markaa soo dhigi doonaa fiidiyogan barteena YouTube iyo barteena TikTok ba hadda taargad u ah marka hadda geedaha qaybaha kale way banaan yihiin wali waxba kumaanu beerin laakiin waanu beeri doonaa haddaanu beerno waad arki doontaan ayaguna markay soo baxaan waliba hadda waanu beernay ayaga mirihii baan ka dhowraynaa waanad mahadsantihiin la socod wanaagsan had iyo jeerba waad ku mahadsantihiin aragtidiina inaad aragteen nidaamyada aan diyaarinayno sidoo kale halkan timirtii ayaa iyaduna noogu baxaysa sida aad u jeedaanba iyadoo geed weyn oo la diyaariyay halkan sidaad aragtaan waa gobkii oo weynaaday oo geed weyna waka